dadka muslimiinta ah daaqa iyo biyaha iyo dabkaba shuraakay ku leeyihiin cidima sheegan karto adigu meesha difaacan kartay meesha lagu yiri difaaca aad leedahay waa maxay de waa beertaada iyo gurigaaga banaanka ma lihid dhalinyaro dagaallo ha u noqonina xaabe dadkii dadka oran lahaa war hal la joojiyo waxa noqon اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم عاف مبتلانا بسم الله ugu horreyn waa idin mahadnaqaya marka labaad waxaan isku dayayaa war kooban inaan idhaahdo oo ku saabsiisan mowqifka muslimkii markay fitanka iyo imtixaanaadku dhacaan nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu tilmaamayaa almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yadihi waalmu'minu man aminahu nnaasu calaa dimaa'ihim wa amwaalihim wuxuu nabigu leeyahy qofka muslimka ahi waa qofka dadka kale ee muslimiinta ahi carabkiisa iyo gacantiisa ay ka nabad galaan mu'minkuna waa qofka dadka kale ay ku aaminaan dhiiggooda iyo naftoodaba sidaa awgeed ayuha alaxiba saxaabo badan baa nebiga calayhi salaatu wasalaam waxay ka soo aroorisay macnaha xadiidkaasi uu tilmaamayo waxaa ka mid ah xadiiska saxiixaynka ku yaalla ee nebigu leeyahy calayhi الsalaatu wasalaam almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yadih wاlmuhaajiru man hajara maa naha allahu canhu muslimku waa qofka muslimiintu ay gacantiisa iyo carabkiisa ka nabad galaan muhaajirka na waa qofka ka hijrooda wixii ilaahay subxaanaه wa tacaala uu ka nahiyey maalmihii ugu dambeeyey nebi moxamed calayhi الsalaatu wasalaam siiba xajat اlwadaac oo kale dadkoo aada u tiro badan oo 100 iyo dheeraad kun ah ayuu nebigu wuxuu ku yidhi jariir ibnu cabdillaahi albajali saxaabigii la odhan jiray dadka aamusii markii ay aamuseenna wuxuu ku yidhi laa tarjicuu bacdii kufaara yadribu bacdukum riqaaba bacd aniga dabaday shaqadii gaalada ha ku noqonina buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam oo ah in badhba badhka kale uu qoorta ka gooyo ama madaxa ka jaro ayuha alaxiba wakhtigan ama casrigan aynu joogno fitanku waa badan yihi siiba dhulka muslimiinta waxaad mooddaa muslimiinta dhulkiisa oo dhan in la ysku dilayo soomaalina muddo imika 30 sannadood ka badan ayay dil waday unoo iyadu isdilaysay ee nebiguna calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu sheegay baryadii ilaahay uu ka aqbali waayey inay ka mid tahay oo nebigu wuxuu yidhi 3 shay baan ilaahay weydiistay labaa layga aqbalay midna laygama aqbalin ilaahay waxaan weydiistay buu nebigu yidhi inaan ummaddayda abaar dhammaantood guntirta inaan lagu itixaamin dabeetana waa layga aqbalay buu yidhi waxaan kaloo weydiistay inaan daadad iyo duufaanno qaadin oo aanay qarqoomin dhammaantood ilaahay waa iga aqbalay buu nebigu yidhi calayhi الsalaatu wasalaam waxaan kaloo weydiistay buu nebigu yidhi alle ummaddayda inaan ilaahay iyaga isku itixaamin waana iyagu isdilin famanacaniiha buu nebigu yidhi calayhi الsalaatu wasalaam laygama aqbalin taasi buu nebigu leeyahy muslimiinta dhexdoodu markaa in badan bay isdilayeen laakiin fitanku waxay soo bilaabmeen markii cumar la dilay waayo waa ka xadiidka bukhaari ku yaalla uu tilmaamayo saxaabada oo fitnooyin iyo imtixaanna ka sheekaysanaysaa wax sheegtay markii dambe uu cumar yidhi maya kuwa idin weydiin maayo ee waxaan idin weydiinayaa fitnada tamuuju fi lbaxr kamaa yamuuju lbaxr yani fitnada tamuuj kamaa yamuuju lbaxr
sida baddu hirarka u kiciso u kicin doonto fitna istaba joogta xudayfa ibn al-yamaan oo nabiga la fadhiyay calayhi salaatu wasalaam cumar la fadhiyay radia allahu canhu ayaa wuxuu yihi cumarow adiga ku soo gaadhi mayso taasi waayo adiga iyo fitnadaasi albaabba idin dhexeeya buu ku yidhi cumar su-aal buu weydiiyey oo wuxuu yidhi ayuksaru am yuftax albaabkaa noo dhexeeya anigiyo fitnada miyaa la furayaa mise waa la jebinayaa waxa lagu yidhi waa la furayaa waa la jebinayaa haddii la jebiye buu yidhi cumar idan laa yuqlaqu abada albaab aan weligii xidhmin buu noqonayaa ayuha alaxiba albaabkii wakhtigaa furmay kolba ama wakhtigaa la jabay kolba inuu leegyahayba fitnadaasi muslimiinta dhexdooda way socotaa laakiin waxaad moodaa wakhtigan dambe soomaali inay iyada si gaara u daashatay marka meel dabku ka yaro damaba meel kalu ka qiiqayaa dhibtu weli waa taagan tahay asbaabo badan baana keenay asbaabta waxaa ka mid ah asbaab qabaliya iyadoo dadku qabyaaladii intay kor soo noqotay reera laysu hayo waxaa ka mid ah asbaab siyaasiya iyadoo qadaaya siyaasiya lagu wada muransan yahay waxaa ka mid ah haymana khaarijiya dad dabadeed oo gacan ku leh waayo isticmaarka nidaamkiisu waa fariq tasud waa qaybi si kale u qaybsami maayaan haddaan madaxa laysu gelinindi waxaa ka mid a bayn leenahay dacfi qiyaadiya ku dhacay hoggaan liita ama aan mukhlis ahayn ama hoggaan dowladeed ha noqdo ama hoggaan bulsho ha noqdo ama hoggaan culamo ha noqdo dadkii hoggaaminayay oo mala iyaguna aan mustawihii joogin waayo mashaakil badan marka ay dhacayaan wax fudud baa loo haystaa marka dagaalada la oogayo wax fudud baa loo haystaa hadhowna waxaa la yidhahdaa sidaa maan moodaynin tusaalaan idin siinaya kii saxaabada dhex maray ridwaan ullaahi calayh saxaabadii isdishay maxaa dagaalkoodu ka dhacay cuhmaan baa la dilay radia allahu canhu dabeetana cuhmaan niman la reer ahaa ayaa waxay yidhaahdeen dhiiggiisii baanu doonaynaa dadkii cuhmaan dilay in loo soo qabto calina ra'yigiisu wuxuu ahaa bal horta fitnada ha la nabo oo waddanku markuu xasilaynu waxaa ka xisaabtami doonaa mayse aqbalin waxay yidhahdeen iyagoo lasoo qabta mooyaane waxba islaaxi maayo dagaalada taqaaneen ee saxaabadii dhex maray ayaa dhacay aljamal iyo sifayn iyo xuruuftaasaa dhacday tiro badan leh akhiiran mucaawiye oo raadinayay dhiiggii cuhmaan baa loo dhiibay madaxnimadii laakiin su-aasha isweydiinta le waxa weeyaan mucaawiya nimankii ma soo qabto ma laaye waa maya markii loo dhiibay waa ray arkay arrintii inay intii ka ballaadhatay waa la ilaabayba qoladaas soo qabashadoodii iyo wixii ka soo hadhay ee bal waxaa hadhay sidii loo islaaxinayay unbaa lagu mashquulay waxaan uga dan leeyahay dhibaatooyinku marka ay bilaabmayaan dadku way la fududay meel dhowna waa laga arkaa markase ay hadhow ballaadhato waxaa la yidhaahdaa sidan lama moodaynin waxaani noqonaya haddaan sidaa moodayno wax lama sameeya haddii sidaa la moodayo waxaani ma dhaceen wax allaaliya waxa dhib jirana hal uunbaa u sababa marka la isku soo wada duuduubo xadiid buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam 5 shay oo dhici doona ilaahay baa ka magan galay idinkana waxaan ilaahay ka baryaa inaydan soo gaadhin shantaa uu nebigu tilmaamay ee saxaabada leeyahay 5 ida btuliitum bihinna waacuudu billahi an tudrikuuhunna hada uu tilmaamay qodobka inaga khuseeyo quraan soo qaadanaya marka wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam
ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. والنبي عليه الصلاة والسلام إلهي بلنكيسي بلنكي رسولك مبريان مسلمينته إلهي واحد عيسين عدو وذا أنت الغصة اللي ده واحد عنته وذا كجرا وقاطه ما أنت مسلم أردن وتاجن أي أركيسين غزوحي كدعي مسلم أردن ما أركيه أي قالوا أردن بيسوق تكتي ولا ليني كوا مركي نكني مادنه وحنا بيقول إيه دتك مسلمين تا دتك مدح ذواه مدح ذا ما مدح السياسي ها هاتو أما مدح ذا نقك ها هاتو أما مدح ذا intellectual كي علماء ذي واحد وانا هذا كواسي هدي أنا يدتك كحكم من إلهي كتاب كيسة وأنا خير كهالكاسي كرادنين ما حد عيب نقول إلا جعل الله بأسهم بينهم إياك بقى إلهي سبحانه وتعالى نبت حدود كينيا مسلمين تمركي كتاب كي علم الله اسكندقي إياكم باب الله اسكو يتحامل مسلم بمسلم بلقوينيا دلال كويس لقوينيا ودن كستقودي يسوي سيل لقوينيا قبائل كويس سيل لقوينيا إياكم باب مدح اللي يسوق لينيا وأنا كي آيات القرآن إلهي كنت المامية dadkoo madaxa la isu suraa inay nooc ciqaabta ilaahay samada ka timaada la mid tahay qul huwa alqadiru ala an yab'atha alaykum adaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum shi'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd ilaahay wuxuu leeyahay alle wuxuu awoodaa inuu cadaab samada ka keeno balaaya samada idinka kaga soo degto wuxuu kaloo alle awoodaa subxaanahu wa tacaala inuu xagga hoose idinkaga soo saaro dhul gariir iyo fulkaana iyo waxay baabiyeen dhulka laga keeno waa laba nooc cadaabka kamida mid saddexaad buu aayada quraani sheegaysaa oo ah waxa kale ilaahay awooda inuu cadaabka ka dhigo in idinka madaxa la isugu galiyo oo badhka kale qadhaadhkiisa u dhadhamiyo idinku ay cadaabtaan in idinku la isku keenay taxaamo ayuha alahibba yariya weynba waxaynu leenahay fitanka waa maxay mowqifka qofka muslimka ah maxaa laga rabaa qofka muslimka ah madaxdii garanay kuwa garan dadka caadiga iyaga maxaa laga rabaa qof kastoo muslima maxaa laga doonaya qofka muslimkii laba mid uun waa inuu yeelaa mid saddexaad ma jirto fitankaasi markay dhacayaan ee dadka muslimiinta isdilayaan in silaax laga dhex raadiyo أما ما هي إنه فتنة يسوي كين عزاله سيدي دابا بني آدم كهدو يسقطه شريعة الإسلام يصدح شيء ويوجي ديس تقالده مصدح راسه ويوجي ديس ككواد وforgiveness والعفو وين عيد الحقوق ده إذا كتنازل عفوه إن ليس عفيه وحاجة وكوب غبصة قاضي أنا آخر إلهي كهرية ووضع بني آدم كل ما يستوحي اسكوهيه كلا بعد وإصلاح compromise أنت لو وضع فريستو إن عندما وحكتكتو وميل دحل يسوي ماضو شريعتنا وقشاي قانون قالت كنا وقولي بلكوا محكمة واحد هذا looyaradii inaanu bal isu dirayna horta inay heshiin kartaan dibadda ku soo heshiiyey haddii labada looyar iyo dadka isaya ay arrinta dibadda ku dhammayn karaan qaadigu uu aqbalaa wixii ay ku dhammeeyeen waa tii gaalada deeta islaamkana waynu ka warramayba waa waxaynu u soconno taana waa la waayey qodob saddexaad baa jiro shareecadu iyo ta gaaladuba ogoshahay waa in dadka loo gar noqo وعدي قر لا قرت الله سيو عدي قر درنا لا يداوت قر درنت
أما مسلمين استلاه ما لكم جردو هدين نقطين مسلم كو استلا يوحى هذيك كسارا محويي وهي علماء يدهدن والعزلة وإن فتنة كفوقاتد إن دتكو اسقبطاه نولش كمت لكن دتك مدح دقمتك أما سياسة أما مامولك أما علماء ويدتك سيدي قيادة سي ماريان بكو حرنت ولذلك عهد النبي عليه الصلاة والسلام يدو دقال بلو سعودو دقال وجري يلا بوي العيل بيودو ولا قد سنة يلا بوي مد هراتيي دبتنا واسماغين وابي سوق الشذين والصحابة يوقع شنيا مدنا أنصار بوقع الشذين مدنا مهاجرين بوقع الشذين يا للأنصار يا للمهاجرين بكد عضي النبي عليه الصلاة والسلام باب مقلي ويقول ما بال الدعوة الجاهلية وروام حي يرمدن تي جاهلية دا هذا رياض الوهد لا يوفر سو رياض وأنصارية مهاجرين بلا سوي يرنيا أنصار نمدي مهاجر نمدنا ورياض أمانة الإسلام كقوي القرآن كقوي الله وهذا كي النبي جو قرقاري يهدت كي النبي جو هجرودي وقواسي لكن مركا يتين مسلم لا يسكت رد ردد وحن له يريو وحنا بنقول المامين يتين دعوة الجاهلية دعوها فإنها منتنة بنبوي وركتها ومنتنة وأريس أبو نبوي عليه الصلاة والسلام وحنا وقولنا إسكداية مد فتنة ولاء ومنافقة وحيري ما أنت يسيدا يالين هدي أو قد فعلوها والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل مقالة دي مدينة هدين نكون نقرنه والله يسأخذ دون أبو يري هدان عدة اللي دتم مقالة لقى صاري وأنا قابل رقا هين وياه وأنا مدحي وين تبو كم دينك كاني بل إيه وننكي سلطان لماذا لو أمامو ديي مركو نبي محمد مقالة مدينة سوق لي أنصاري جاهلية دودي أو سي خزرج أنت استشي ودكي ووينا يورد من مردين أي مرد بهشية شن سنة ضد مدة مركي يستلين بهشيس كله دبتنا وحلا إذا بقر سما يسنو إن وضع ما مولاه بقر نمدي عبد الله بن أبي بن سلول بالله تاج كله تلي يضل الله وضع أبو النبي محمد صلى الله عليه الصلاة والسلام مقالة دي مدينة هاي دبتنا دكي إسلام كي قال إنه إسلام قال الراعي وحو أركي يسوي من سياسي كرسي يسيل داعين وجيه ومسلمين تنعصبه ما يشتمي إن كرسي كقاضي مركا كانس كستي سووا رادينيا أو ضد كم هذا حيسوق ليه نبتني مركا إن عضينا وحدا وقد فعلوها متاسي ما أنت ياله مدينة هلا تجابولي عند مقع عليه عزيز كاهي شرفت له ويصار دون تابولي قوة ذليقة نبي قال له عليه الصلاة والسلام وفرصة عضده مركي هرر السبو ماري نبي نينك وركي سي مركي الله شاغينا صحابة ويما وحيدا يا رسول الله كان ندله وهذا منافق نينك وحاكو هضليا هل الدلي بيد هذا وحنا نبي يقول دعه اسكدايه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه ضدك دريدك هلا كوشيا كيسر ما يا محمد انت راعدي بقول لا يي اسكدايه بكو يري النبي عليه السلام يدو لوغي انه منافق يحي يدو لوغي هي انه دب وضه يدو قران كسو دغاي دبتيسا ايا هدنا قياده النبي محمد عليه الصلاه والسلام وحو غاري ان لودي كره halkii mujtamacu waayo ninkan haduu qayliyo waxa laga yaabaa dad caamiba inay raacaan waxa laga yaabaa islaamka in la dacayeeyo la yiraahdo maxamed alayhi salatu wasalaam dadka intii la socotay buu laayay oo wuxuu dadka raaca buu yiraahdo waad xujowday sida ogeed wuxuu dhidacbu iska daayay ayuha alhibba mashaakilku wuu dhacaya laakiin maarayn buu markasta u baahayay in la maareeyo oo dadka ahlu aqliga ah ma aha iyaguna inay dagaal ku sii maareeyaan waa inay tala kale
oo ay ku maareeyeen waa inay la yimaadaan. maxaa ka mid ah markii la yimi meesha iyadoo madiine la joogo markii guriga nebiga wax laga sheegay nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa gurigiisa wax laga sheegay. bulshooyinka sida loo baabi'iyo waxaa ka mid ah isqaatu rumuus, in dadka hoggaanka u haya la ceebeeyo, markaa kala dambayntaa lumaysa. haddii dadka madaxda dadka u ah ama hoggaanka u ah ama qiyaadada u ah ceebtoodu laga warramo, la faafiyo, la tiro badiyo, la sheego, idan waxay noqonayaan dad aan kalsoonidii dadkaa lumaysa. mar hadday kalsoonida dadku luntana cid raaci mayso. waa siyaasi ay ku soo dhaqmi jireen munaafiqiintu weligoodba. munaafiqan aan sheegaynay cabdillaahi ibnu ubay iyo koox la mid ah ayaa waxay sameeyeen xaadiثatul ifkigii macruufka ahaa. caaisha radia allahu canha iyo saxaabi bay yidhaahdeen xumay sameeyeen. ilaahayna saxaabadaas waa la tajribeeyey bal sida ay yeelaan. bil baan waxyi soo degin masaladan ka warramaya. magaaladii madiine way isla aguugtay. warkii dadkii waa wadwaday, barh baa dadkii run u qaatay warkaba, aad buu u tiro batay. waa qisada in badan ka maqasheen culammada oo idin sharxaysa, laakiin maxaan uga dan leeyahay masaajidkuu nebigu yimi dabeetana intuu mimbarka fuulay buu yihi yaa macshara almuslimiin man yacdirunii min rajulin qad balaga aadaahu fii ahli beyti. muu odhan hebel yaa iga qabanaya, wuxuu yidhi war nin yaa igala hadlaya dhibtiisu ay gaadhay gurigaygii xataa. wuu awoodi karayay nebigu inuu yidhaahdo kaa soo qabtoo dila, mar horaa la dili lahaa. laakiin bal inuu si kale u maareeyo qadiyaddu tijaabinaya aan dilka lagu degdegin. markaasuu wuxuu yihi war yaa iga qabanaya nin dhibtiisu ay soo gaadhay gurigaygii. anigu gurigayga iyo ninkaa saxaabiga wax laga sheegayba waxaan khayr ahayn kuma ogi. anigoo la socdana mooyaane gurigayga muu soo gelin. sacd ibnu mucaad qabaa'ilkii meesha degi jiray qabiil odayadoodii baa istaago wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyow hadduu reerka yaga yahayna sheeg annagaa dilayne, hadduu reerka yahay kalena nafar annagaa soo qabanaynoo dilaynaa. odaygii suldaanka qolada kale u ahaa ayaaba xanaaqay. sacd ibnu cubaada baa xanaaqay. muxuu ka xanaaqay? ninkan le reerkii iyaga hadduu yahayna waa dilay, reerka kalena noo sheegun annagaa isagana laftoodana wax ka qabanayne ayuu ka cadhooday. dabeetana wuxuu yihi kadabta wallaahi, been baad sheegtay maadaa taaban kara buu yidhi. markaad ogaatay inuu reerka iyaga yahay ayaad warkaa ku hadlaysaa buu tilmaamaya. dabeetana usayd ibnu xudayr saxaabi kaloo ay ka hore ilmaadeeriyiin ayaa istaago oo yidhi waa runtii wallahi adaa been sheegaya, hadduu kaa iyaga yahayna waa dilayna, hadduu qolada kale yahayna nebigaana faraya. buuq baaba kacay, waaba la isdili gaadhay. reerka inay dabadda isugu baxaan oo istilaan ayay ku dhowaatay. nebigu calayhi salaatu wasalaam wuu aamusiiyey. war bal jooga buu yidhi, arrinka u kaadiya. wuu dejiyey. waxaan qadaayaadkan u tilmaamayaa, waxaan u tilmaamayaa bini aadamku inuu isqabto bini aadam buu u yihi. laakiin inagu maxaynu dadka kaga gedisanay? mashkiladda timaada xalkeedaaba ka dhib badan mashkiladda lafteedii. waxaynu xalka ka dhigno ayaa wuxuu ka dhib badanya mashkiladeedii. soomaalida nin baa la dilaa, xalku muxuu noqonayaa? laba u soo diltay ama saddex u dil, markaasay yana shan u dilayaan. wixii laga cabanaya hal qof baa dhintay buu ahaa, imikana 10 baa aakhire la qabadsiiyey. maxaa xal ee la gaadhay markaa? yacni mashkiladdu qof bay taagnayd, la dilay in xal loo raadiyo. haddii xalku uu noqdo 10 ha loo dilo, mashaakilkuubaa mashaakil lagu daray, xal maaha. ayuha alaxiba, nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam isagoo inooga digaya markaa dhexdeenna inaynu isdillo ayuu xadiid wuxuu ku yidhi ilaahay baa dhulkoo dhan ii soo ururiyey oo i tusay sidii tv-go kale loo tusay. dabeetana waxaan arkay buu yidhi in ummaddaydu ay gaadhi doonto mashriq iyo maqribba inta lai muujiyey.
waxaana laysiiyey buu nebigu yidhi kanziga cas iyo ka abyadkaaba. kanziga cas iyo ka abyadka waa diinaarka iyo dahabka, waa silfarka iyo goldka. culamada qaarna waxay dhahdaan maaha waa labadii guri ee labada dowladood looga talin jiray. beershiyana guriga cad baa looga talin jiray oo madaa'in ku yaalla, kisrana guriga cas baa looga talin jiray. haddaad tidhaahdo waa dahabka iyo fidadiina labada qolana diinaar bay isticmaali jirtay, qolana dirham bay isticmaali jirtay. waa uun dowladnimada islaamku intay ballaadhataba waxaasoo dhami gacantayada soo geli doonaan buu nebigu yidhi. dabeetana wuxuu nebigu yidhi xadiidkii aynu soo sheegnay, ilaahay baan weydiistay inaan ummadayda abaaro ku halaagin ama cadow dabadeed inaanu wada laynin oo bannaysanin baydadooda. ilaahay waa iga aqbalay buu yidhi. laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ka diiday iyaga dhexdoodii ahayd xataa yakuuna bacduhum yuhliku bacda wayasbi bacduhum bacda buu nabigu leeyay. ilaa ay dhacday in iyaga dhexdoodu qaarba qaarka kale ay laayaan ama ay qafaashaan oo xidhaan. waa dad muslim oo isxidhanaya. gaal baa la yaqaanay la yidhaahdo waa la soo qabto waa la xidhaya. muslim soo qabsanaya oo xidhanaya buu nebigu tilmaamaya. adduunka markay iyagu isdilaan cadowgooduna wuu tumaya. aakhirana naar baa ka horeysa. waman yaqtul mu'mina mutacamida fajazaؤuhu jahannama khaalida fiiha waqadiba allahu calayhi walacanahu waacadda lahu cadaaba cadiima. qof mu'mina qofka gardarro ogaan ugu dila 5 shay baa ilaahay yidhi waa ciqaaba buu leeyahy. jahannamuu ku waaraya, cadho ilaahay baa ku dhacaysa, lacnad ilaahay baa ku dhacaysa, cadaab weyn ayaa ilaahay u diyaariyay. waxaasoo balaa buu leeyahy ilaa xad la gaadhsiiyey. war toobadiisa ma la aqbalaya mise la aqbali maayo ilaa culammadu ay muran ka keenaan. bale nebigu wuxuu tilmaamay ida iltaqa almuslimaani bisayfayhima, labada muslimkii hadday seefta iskala hor yimaadaan ka la dilay iyo ka wax dilay labaduba waa ahlu naar buu nebigu yidhi. waxay yidhahdeen ila rasuulkiisiiyo ka wax dilay garanee ka la dilayna kaana xariisan calaa qatli akhiihi buu nebigu yidhi. waa laga ilrooraaday una dee isba inuu dilaa unbuu doonayay. xabadunbaa kan ku hor dhacday, ka kalena xabadda waa ridayo inuu ku dhuftaa buu doonayay. ayuha alaxiba, waxaan shareecadu bannayn baynu isku haynaa. in badanoo inaga mida waxay tidhaahdaa waa difaacu nafs. reer waliba difaacu nafsi buu ku jiraa, iyo inuu isagu wadaadkooda u fatwooday xaggooda inay difaac ka yihiin, qolada kale inay gardarrada wado. waxaynu isku haynaana waxay u badan tahay wax shareecadu tidhi muslimku ka dhexeeya. bal culimmada weydiiya. wuxuu nabigu yihi almuslimuuna shurakaa fi 3 fi lkala'i walmaai wannaar. dadka muslimiinta ahi daaqa iyo biyaha iyo dabkaba shuraakay ku leeyihin, cidima sheegan karto. adigu meesha difaacan karta meesha lagu yidhi difaace aada leedahay waa maxay? dee waa beertaada iyo gurigaaga, bannaankaa ma lihid. reeraha iyagaa dega de kuma yeelanaysid. reer kasta ha dego. waa kale muslimka ka dhexeeya, biyuhuna muslimka ka dhexeeya. nabiyullaahi moxamed baa le almuslimuuna shurakaa, shariik bay ku yihin. magaalada daartaadu maad ku leedahay. nin walba intuu xaq u leeyahay, inta aanad reerkiinaba ka sheegatunbaad ka kalena ka sheegan kartaa. gurigaaga iyo beertaada nin walba waad ka sheeganaysaa soo maaha. intaa unbaad ka shisheeyaana ka sheegan karta idaan isku reerka ahayn. amaa inta kale muslimka way ka dhaxaysaa. laakiin inagu reer walba intuu in qoobaartay ayuu wuxuu leeyahy halkaa hadday soo degaan reer hebel way soo xadgudbeene ha la laayo, halkaa hadday reer hebel ka soo wareegaan ha la laayo. waa inuu dadka isku dayo inuu heshiis raadiyo, islaax inuu ka dhex raadiyo. islaax raadinta ilaahay wuxuu leeyahy laa khayra fi kathiirin min najwaahum ila man amara bisadaqatin aw macruufin aw islaaxin bayna annaas waman yafcal dalika ibtigaaa mardaati illahi fasawfa nu'tiihi ajran cadiima. waxa ay shirshirayaane faqayaan baa la yidhi
khayr kuma jiro ilaa iyo kii dadka sadaqa farayay iyo kii macruuf sama kale farayay samahay ka mid tahay haddana gaar baa loo sii saaro waxaa la yidhi aw islaaxin bayna annaas kii dadka heshiisiinayay haddii adiga kelmaddaada lagu heshiinayo waajib bay kugu tahay heshiisiin haddaad garanayso mid kelmaddiisa lagu heshiinayo dabada ka kaxee haddaad lacag ku bixin karayso in la heshiiyo ku bixi waayo ma magac ma doonaysaa sharaf ma rabtaa ma khalqigaad ka rabtaa mise ilaahay baad ka rabtaa horta markaynu qowlalada ka wada xumaynayna leenahay reerku ha isu soo baxo berri shir baynu halkaa isugu imanaynaa xoolaha la keena aynu wax iska dhicin maxaad raadinaysaa magacadee waxaad si leedahay la yidhaha waa ninkii maalintii reerka meesha fiican geeyey ilaahay agtiisa maxaad ka rabtaa markaa ma waxaad rabtaa bini aadamkan kula midka ahay inuu ku maamuuso oo waa hebelku yidhaahdo mise waxaad rabtaa in ilaahay ku maamuuso waad xagga ilaahay magac iyo maamuus ka yeelato ilaaha kownka abuurtay ee adiga ku abuuray ee janniya naar leh markaasaad magac ka doonaysaa mise dadkaad ka raadinaysaa haddaad kaa magac ka doonayso inaad wanaagga ka shaqaysaa buu ku jiraa ilaahay haddaad magac ka doonayso iyo maamuus inaad wanaag ka shaqayso ayuu ku jiraa laakiin inaad cumaamada tuurto u tuurtid in dadku isa sii dilo dadku waa kala gardaraan karaa dhib waa dhici karta laakiin dhibka xal baa loo raadiyaa waxaad moodaa ilaahay weynidiisa iyo cabsidiisuna inay nagu yaraatay dadka reerkaa ceeboobaya buu kuleeyahay oo ka warra haddaad ilaahay ku hor ceebowdo oo naarta gashid labada ceebood waa yaba bal horta haddii baan ka soo qaado inaad reerka ku dhex ceeboobaysaan oo la odhanaya nimankii reer hebel waxba iskamay celin baa layna odhanaya inanteenna la guursan maayo waxaasi waa beenaynu isku akhrino inan kasta waa la guursadaa laakiin dhibta jirtaa waxay tahay magacaad raadinayso nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam wiilkii uu awowga u ahaa ee xasan ibnu alcaliy oo yar baa maalin soo baxay dabeetana saxaabo isagoo la hadlayo wuxuu ku yidhi ina bnii haada sayid inankaygaa yar soo ma aragtaan waa sayid buu yidhi sayidku dee waa madax maamuus leh oo waa maxay walacala allaha an yuslixa bihi bayna fi'atayni cadiimatayni min almuslimiin waxaana la arkaa buu yidhi in ilaahay gacantiisa ku heshiisiiyo laba kooxood oo muslimiina oo waaweyn oo isdilayay dagaalkii dhex maray cali iyo mucaawiya sidii u socday cali waa tii khawaarijtu dishay xasan baa noqday khaliifatu lmuslimiin sharci khaliifadii muslimiinta sharciga ahayd xasan baa noqday isagoo ciidamo wata oo la yidhaahdo ciidamadiisu 100,000 way gaari karayeen ayuu wuxuu qaatay heshiisku waa maxay inuu isagu madaxnimada ka daadego qoladan siiyo si ay dadku isu daayaan ninkan khilaafadii dhammayd ee islaamka ee uu amiirulmu'miniinka ahaa ayuu wuxuu ogolayay inuu kursigaba ka daadego sababtu waa maxay oo weliba la siiyo yuu siinayaa kana istilayaan oo aan ka xoog badnayn oo ka ciidan badnayn oo xaqa kaga taagnayn ayuu siinayaa muxuu u yeelayaa liajli maslaxati lmuslimiin dhiigga muslimiintu muddadii dhowrka sannadood ee muslimiintu ay istilayeen iyagaa isku mashquul ahaa taaka in leegoo dhuloo kale may furanin markii heshiiskaasi dhacay kadibna istanbul bay saxaabadu ku dhimanayso dagaaladu gaadheen yani dadka muslimiinta iyo markaas ay in dhulkii ugu badnaa furteen ayuha alaxiba in qofkii faadilka ahee mudnaa uu ka daadego oo mafduul madax laga dhigo oo nin boqoroo muslim oo isaga si sharciya loo maamuusay uu kursiga ka daadego
ونمان عيد ماموسين وسيو وقد أدقو وانو عيدا لأنا هنين بقول كنا عسكري ووطه وحوية لي إنه إلهي يكتسب مقعك الراديو. إذن أيها الأحبة عدي إلهي كعب صريس أما يستقى مقعك الرادي نيسا ديق مسلم كما ديريس كما دواقه مرمرسيها بدنا أو الدفاع عن نفسنا ضدكم بالاسكو دليا من ولي هو آخر سنة كتاب لنا الدفاع عن النفس موقف كين وين نقضى السيبر دالين يروي دقال الله ونقنين حابئه ددك أوران لها ور هل تشوشي واحد نقضى ددك أوران لها إن دبت الله يريه مستقبلك وقمتشيرو هنا القرون عدلا كنت قالت تهدد وحكو الله يسوق بسطنا وعيد عدلا صومالي هنا بعيد عدلا هدي اللي ودي لنا وعيد عدلا ما أنا وحبك الصباح حيني سلاح رادين هدي سلاح لو هي محد عيا أدقو تقال كاقيل والنبي يقول عليه الصلاة والسلام المقداد بن الأسود صحابي قال له روحوا يلي وحن مقلي النبي قوله إن سعيد لمن جنب الفتن سعيدكم وفق ليباني وروانك فتنة ألا كفوقية ويري ورنك الليباني ورنك إلهي فتنة كفوقية نك الليباني ورنك إلهي فتنة كفوقية ولمن ابتلي فصبر فواهم بنبوري واهن وأري مرنا للتوجع لا استعماله مرنا للتعجب لا استعماله يعني إما إن لو جدوا إنك مشكلة داس قبصتي أنتو صبريس كدا يردم وقبحي كاسوا من رجعين لو قدن ليه أما إن لا يعني كاسب بلا قد عضي يعني واهن إن لا تلمام يعني كاسين مشكلة ده هي ستة إنه يهي لكنه صبرين يتهي وحماش كوتشنا صحابة بدن وكلا نوع حديث السوريين وحنبي وكيري وهسي هذي دعان حان سمايا اجلس في بيتك ونبي كيري قرقا فريسو فإن خفت أن يبهرك شعاع الصيف فغطي وجهك حديث سيفتا ولا عديده أي كعبسي قال سنة اندهم مضح قرصب ونبي كيري لفظك له حكوليه فكن خير ابني آدم خير ابني آدم واحد نغطى لبدي إنا آدم كيف يعني كفي وكيل الدلي لفظك له حديثك كليه فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل حديثك وحقارسي حد هدي هاد عبصته قرقاقات فردي هدنا والغلا سوق على السيف حبا هلا دقالي موت المامية علماء waxay dhahdaan waa sida loo fogeynay inaad qof muslima disho al aslu bay dhahdaan istifaaca naftaada markay gurigaaga gaadho waa banaan yahay laakiin waxay dhahdaan hatta takalana inay banaanaato aba dhici kartaa marka uu nabigu leeyahay maradaada madaxa saar ama kala dila ahaw ama ka cayn kana ahaw waa maxay macnaheedu waa ka qayb gelin ويقول النبي عليه الصلاة والسلام آخر الزمن كان مشاكل بقى قبصان دونا بلا يبقى من دونا هبين كما دوك الله ميدا وحد عندنا قف صبحين مؤمنة قلبتين قالة أما قلبتي مؤمنة صبحين قالة فتنة داسب النبي يقول القاعد خير من القائد كفردية أياك خير بدك تاجن كصعنية وهاك خير بدن كتاجن يعني كلما حق فتنة دوسين دواتبا نبي حكوي عليه الصلاة والسلام ان باشي قمون كينا قانصدينا الشبيه وحرق كده قوية وسيفتينا دقح كو قراعة يعني سيفت هذا هلك البنادم كو قراعة دقح كو قراعة بلا سيف نقو فإن دخل على أحد منكم فليكن كخير ابن آدم هدي لغو سو قالنا
لبدا الماء آدم كخير كبدل للنغو أيها الأحبة وبالرمضان وحين رادين إن الدنبك هرين نسكم ميدنو خير بين وضرات عيننا خير كاتراد عيني سيد بداف كاتراد عين ساها كبل أبو قعنت هذا إن أنا قف مسلمة جاني الباب كائنات قف كتيرين قعنت هذا قف مسلمة إن أنا جاري ويسوق عفيمي مو أنا آخر عيد كاسي ديميس لكن النبي يقول عليه الصلاة والسلام آخر قرب الله كيرا صلاة بدنية صوم بدنية عيد بدل سوى سمي وحيو شقي صرنا ضدك الله قيبيه وهي كم وعي وكم ودلي وكم ماجي وكم بابا وحيو صلاة يا حجية وذا يوردن يسوي حبك بدفون ضدك الله قيبيه بل هذه ديراد وليبا لغوية شو كو كلا دب بيقول الله صوصارة مركها بالرمضان بينو شوقنا أي نسكت دينو ندب بيقول هران اسكم ما يدنو من دم بنينين ننقلين أي نسكت دينو ضدك مسلمين تاي مالي شوقان با silaaxooda iyo wanaagooda iyo heshiiskooda iyo nabadooda inaad ka shaqaysid aan isku dayna dagaal muslim sidaan u dhici lahayn laba qof oo muslim oo shahaadanaya oo kacbada u wada jeeda si aanay isu dili lahayn way isqabanayaan oo dhibaato adduunka lagama waayo laakiin dadka aqliga leh iyo waxgaradku waa inay xal u raadiyaan waqtigu waa goor dambe meeshan ku kulushahay marka intaas aan ku soo koobaya صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم عاف مبتلانا واغفر ذنوبنا وارحم موتانا. إلهي سبحانه وتعالى عدو لبوحي كعبا ساكتلها كي حنوك كعبا يا إلهي حنوك كتلها كي نبك لك كعبا يا إلهي نبتك لك كتلها نرشى دون امتحانك يا إلهي هي نوفض أيديه وحي خير نوبجر الله سبحانه وتعالى هي نوبهنوني وحي شر نوبجر يا إلهي هي ندافيه دنبك يكي والدك با الله نافه ضدك مسلمين تعمل كستويسكو هيام إلهي سلاح حدودا كرده إلهي وحي خير وجر هو فجير كوي دين إلهي قبصدي كو لا لو كو الله كيال صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.